بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin soo gudbinayaa qiso cajiib ah. Intaanan guda gelin fadlan subscribe saar channelka si ay ku soo garan muuqaalan soo geliyo gambareelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada. qisadan ayaa waxa ay ku dhacday gabar waxa ay tiri waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah waxaan ku soo barbaaray guri si wanaagsan looga dhaqmo diinta islaamka. da'deedu waxa ay ahayd 32 jir. wiil ayaan isbaranay ugu dambeyn waxaan ku heshiinay in aan isguursano. markaanu heshiinay ayaa waxaa lagu yiri gabadhaani waa qof weyn oo waqtigii guurka waa ay dhaaftay caruur badanina ku dhalimayso ee iska daa. intaa kadib waxa inoo yimid nin xagga wiilka ka socda waxauna inoo sheegay in arrintii guurka ay ka noqdeen. waxa ay u noqotay arrin aad u adag. niyad jab ayaan ka qaaday. hase ahaatee waan iska samray. waxaan aaday masjidka xaramka ee barakeysan si aan u soo cumraysto. markii aan tegey waan soo ducaystay oo ilaahay ayaan soo baryey. kadibna markii aan ku soo noqonayay waddankaygii waxaan diyaaradda isku aragnay gabar saaxiibtay ah iyo ninkeeda oo isla socdo. waxaana iyaga la socday wiil kale oo saaxiibtay ninkeeda ay saaxiiba yihiin. waxaan si nabad ah ku yimid waddankii aniga oo jooga dhowr cisho kadib waxa ay soo wacday saaxiibtay waxayna igu tidhi wiilkii diyaaradda inala saarnaa ayaa doonaya inuu ku soo doonto oo ku guursado. aad baan ugu farxay hadalka saaxiibtay. iyada ayaana isku keen xidhiirisay. isnabadeen iyo wada sheekaysi dheer kadib waxaynu ku heshiinay inaan isguursano. kadibna waan isguursanay. muddo yar kadib waxaan qaaday uur. saygayga aad buu ugu farxay uurkayga waxauna iga codsaday inuu igeeyo dhakhtar si aan u ogaano waxa uu yahay canuga caloosheeda ku jira. run ahaantii waan ka diiday in aan dhakhtar aado. habeenkii umulidda markii la gaaray waxaa ii yimid aniga hooyaday iyo walaashay. waxaan kala qaaday indhaha waxaana weydiiyey canuga aan dhalay waxa uu yahay wiil mase gabar. iyaga oo ilmeynaya islamarkaana labadeeda gacmood kala haysta ayay igu dhaheen waxaad umushay 2 wiil iyo gabar. waxaan cishan waayey ilintii. waxaana dirbadiiba soo xasuustay ninkii hore kaa oo iiga tegey in aanan carruur badani aanan dhali doonin isaga oo u aaneynaya da'da aan jiro awgeed. ilaahayna waxa uu isiiyey iguna irsaaqay islamarkiiba 3 carruur oo mataano ah. run ahaantii qof kasta oo ilaahay talada u dhiibta ilaahay ma dayacayo waxa uuna ka irsaaqayaa meel uusan ka filanaynin. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. fadlan haddii aad ka cusub tahay channelka subscribe dheh si ay kuu soo garan muuqaaladan soo geliyo. like star share dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada. dhiirigelinta ku aadan commentigaagana waa inoo muhiim. mahadsanid.